dadka dhaca catooshara la dhaabacay catooshara lagu goobtay dadka dhahaaya been ay iga sheegayaan midda kale waxa la hadlayaa Soomaali Maxamed waxa maanta markhaati ka aheeday waxa ay dadka qaar sameeyaan waa muslimka bax waa diinka bax waa dulmi cad waa wax Ilaahay uu saraali ka ahe kidii qaraabadeeda hadoo kale hadii ay dhii doonaan catooshara gawaru naga dhaabac ama catooshara gawaru wax naga gaarsiiyay waxaan ku hayaa cod uu soo duubay catooshare oo lagu xiray mid ka mid ah saldhigyada magaalada Muqdisho kadib markii magaalada dhaxdeeda lagu shirqoolay waliba mooto laga soo dejiyay catoosh waxa uu codadkan qaybta dambe ku sheegayaa in shirqool loo maleegay balse aan iskaaga hari doonin yaan warka kugu dheereenin waxa aan kuu fasaxi doonaa codadka uu soo duubay catoosh asigoo aad u ilmeynaya qiiraysan waliba wax badan ku sheegayo yaan warka kusii dheereenin codadka catoosh iyo waxa uu sheeganayo iyo xaaladiisa hadda ayuu ka hadli doonaa ila dhageyso dadka dhaca catooshara la dhaabacay catooshara lagu goobtay dadka dhahaaya been ay iga sheegayaan midda kale waxa la hadlayaa Soomaali Maxamed waxa maanta markhaati ka aheeday waxa ay dadka qaar sameeyaan waa muslimka bax waa diinka bax waa dulmi cad waa wax Ilaahay uu saraali ka ahe kidii qaraabadeeda hadoo kale hadii ay dhii doonaan catooshara gawaru naga dhaabac ama catooshara gawaru wax naga gaarsiiyay waxa ay dadka qaar sameeyaan waa muslimka bax waa diinka bax waa dulmi cad waa wax Ilaahay uu saraali ka ahe ninka raga ah afarka ma kaftamo waxa lahay hooyadiis xaaskiisa iyo gabadhiisa sida aad adiga u kulaanaysid inuu qofka kale u kulaanayo maanta ninka raga ah hooyadiis xageeda hadaa laga maro uu kulaanateenayo sharafteyda meel ugu dhacayo sharafta xaaskeyga meel ugu dhacayo maanta waxa ay dadka qaar sameeyaan waa muslimka bax waa diinka bax waa dulmi cad waa wax Ilaahay uu saraali ka ahe ninka raga ah afarka ma kaftamo waxa lahay hooyadiis xaaskiisa iyo gabadhiisa aniga waxyaaba bareefadkii ma doona inaa ka hadlo dib iyo haastana ma jiro Soomaali Maxamed waxa idin sheegaa an nacas ma ihi ninka raga libintiisa waa loo xiraa lahay nacasnimada hala joojiyo nacas ma ihi nin meedii ka doodayo ma ihi marka isdejiya codka aad maqlaysaan catoosh waxa uu leeyahay qof meedii ka doodayo ma ihi hal isdejiyo xaaladdu way degi doontaa balse wuxuu sheegayaa in dad ay shirqool u maleegeen saasna uu halkan ku yimid kadibna mootada lagala degay laguna xiray mid ka mid ah saldhigyada magaalada Muqdisho haddii ay arrinkan sax noqoto oo saldhigga qof walba iskaaga xiri karo uusan sharci uusan jirin dalka waxa ay meel ka dhac ku tahay dowladda Soomaaliya balse catoosh hadda waxa uu ku xiran yahay saldhigyada magaalada Muqdisho waliba bilaa sharci mooto ayaa laga dejiyay goobtaas ayaa lagu xiray hadda xaaladiisa wuxuu sheegayaa in uusan ogeyn waxa uu xiran yahay sababta loo soo xiray waliba gabar uu qabo xaaskiisa ay tahay mooto kala soo degtay iyo rag kale halkan uu hadda ku sugan yahay catoosh waxa uu sheegay dadka shirqoolay in markuu halkan ka soo baxo uu sheegi doono magacyadooda waxaan rajeynayaa in walaalkeena cadaalad uu helo goobtaasna uu ka soo baxo waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan sii faafiso si walaalkeena catoosh cadaalad uu helo goobtaasna laga soo saaro waa mahadsantahay